maalin maalmaha ka mid ah ayaa nebi suleymaan calayhi salaam uu aaday aroos qaraabada ah si uu u soo booqdo. isagoo jidka sii haya ayaa waxaa ka hor yimid malakulmood wuxuuna su'aalay meesha uu u socdo. wuxuuna nebi suleymaan ku jawaabay, waxaan u socdaa aroos qaraabada ah. markaasuu ku yidhi, ma waxaad u socotaa arooska aan nafta ka soo jarayo ii amray in aan soo gabagabeeyo? nebi suleymaan aad ayuu u naxay, waa uuna istaagay. wuxuu isweydiiyey, ma meel laga farxay sanaa oo murugo isu beddelaysa ayaad aadaysaa? wuxuuna go'aansaday inuu iska nagaado. waa uuna nagaaday. subaxii markii waagii barye ayuu reerkii booqday nebi suleymaan calayhi salaam, wuxuuna la kulmay aabihii wiilka arooska ah. wuxuuna aabihii su'aal weydiiyey nebi suleymaan sababta uu xalay uga nagaaday arooskii. inta uusan ka jawaabin su'aashaas ayaa waxa u yimid malakulmood, wuxuuna weydiiyey wixii dhacay. wuxuuna malakulmoodkii ku jawaabay, ilaahay subxaana wa tacaala ayaa i amray inaan soo laabto. taasna waxaa sabab u ah in islaan maskiin ah oo reerka duleedkeeda joogtay uu wiilka arooska ah aabihii uu si wanaagsan u sooriyeeyey oo ka farxiyey, islamarkaana ay islaantii ilaahay uga bariday in arooska ilaahay cimri dheer iyo nabad qab yeelo, taasoo ilaahay aqbalay ducadii maskiinta, reerkiina ka baajiyey masiibo daran. taasi waxay caddaynaysaa ina ilaahay yidhi, isu naxariista anna waan idiin naxariisan. walaal, haddii ku anfacday faafi si aynu ugu gargaarno masaakiinta tabarta yar ee aanan awoodin inay wax qabsadaan. mahadsanid.